السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي وناكسن إن شاء الله ما أنتو حينو هالكان كسي وديتونا عشرة دي تحناها آي الترسامك قيبتي سدحات قيبتي ودن بيستي أي أنو كسو هذا النيو حينو نوجوكتي حنون كلا يقانو acute hepatitis عقارشوق عصب يكود عبيركا qaybtan maanta waxaan ku eegi doonaa ee saddexaad cagaarshowga loo yaqaano chronic hepatitis oo ah cagaarshowga soo daaha waa cudur daaha oo keena caabuq ku dhaca beerka waxaana sababa cudur dhaliyaal kala duwan wuxuuna soo muuqdaa ugu yaraan muddo 6 bilood ah asagoo lahayn raysasho ayna la socdaan dhimashada iyo yaraanshada unugyada beerka yacni waxaa dhimanaya inay unugyadii beerka ay dhintaan ayna yaraadaan chronic hepatitis iyo acute hepatitis midna waa cagaarshow cusub oo waqtigiisu uu ka yar yahay 2 bilood midna waa cagaarshow daahay oo waqtigiisu ka badan yahay 6 bilood marka chronic hepatitis waa cagaarshow muddadiisu ay gaarsiisan tahay 6 bilood ama ka badan tahay waxayna sababaysaa caabuqaas raagay ee beerka ku dhacay in ay dhintaan unugyadii beerka ama ay yaraadaan cagaarshowga soo daahay ee ku dhaca beerka waxaa lagu arkaa burbur ku dhaca unugyada beerka waxaana afka Ingiriisiga la dhahaa cytolysis syndrome baaritaanada ultrasound-ka ma sheego wax calaamad oo lagu yaqaano cagaarshowga soo daahay 50% dadka qaba cagaarshowga soo daahay calaamadaha lagu yaqaano waa beeryarada oo weynaata splenomegaly beeryarada oo weynaata afka qalaadna waxaa lagu dhahaa splenomegaly yacni weynaan markii la leeyahay splenomegaly normal ahaan cabirkeeda waa wixii ka yar 8 centimeter marka haddii ay 8 centimeter ka badato wixii ka badan 8 centimeter oo masalan 12 centimeter ilaa wixii ka koreeya waxaa loo aqoonsan yahay in ay beeryaradii weynaatay muuqaal ahaanna markaad aragtid qof cagaarshow qaba waxaad arkaysaaba in beeryaradiisa markaad baaritaan ku sameysay ama aad taabatid in beeryaradu ay weyn tahay oo cabirkeeda saxda ay ka weyn tahay size-keeda uu weyn yahay ultrasound-ka uurku jirta ma sheego cadeymo rasmi ah ee ku saabsan cagaarshowga soo daahay sidaa daraadeed ultrasound-ka waxaa loo isticmaalaa in lagu doorto meesha cadka beerka laga soo saarayo waxaa loo yaqaano hepatic biopsigaas si baaritaanka caafimaad loogu sameeyo waana in lala socdaa dadka qaba cagaarshowga 6 bilood oo kasta baaritaanka ultrasound-ka ee cagaarshowga soo daahay waa mid xadidan oo limited value buu leeyahay kaliya wuxuu sheegaa beeryarada oo weynaatay iyo xajiyayaasha beerka iyo qaybaha sare ee xiidmaha oo bararta splenomegaly iyo waxa la dhaho hepatoduodenal ligament adenobasis marka baaritaanka ultrasound-ka wuxuu ku xadidayaa in beeryaradii ay weynaatay iyo inay jiraan qaybta sare ee xiidmaha barar ka jira iyo xajiyayaashii oo weynaada halkan waa sawirkan wuxuuna tusayaa qof qaba chronic hepatitis in beeryaradiisii xoogaa ay weyn tahay haddii aynu usoo gudubno qaybta kale hepatic steatosis waxa la dhaho steatosis waa beerkii oo xayrooba ay xayr fadhiisato xayroobida beerka beerka xayrowga waxaa lagu qeexaa baruur ka buuxsantay beerka oo ka kooban 10% waxyaabaha ugu badan ama ugu waaweyn oo sababi kara beerka inuu xayroobo ama beerka xayr ay qariso ama waxa loo yaqaan beer xayrowga waxaa ka mid ah number 1 muddo dheer oo la cabo alcoholada afka qalaadna waxaa lagu yiraahdaa dhanka caafimaadka alcoholic steatohepatitis ee waxaa laga soo gaabiyay ASH syndrome number 2 waxaa sababi kara cayilka badan obesity qofku markuu aad u cayilan yahay waxay sababaysaa in beerkiisii ay xayir ku wareegto ama xayir ay fuusho sidoo kale dadka qaba sonkorta waxay halis ugu jiraan in uu boorkooda xayroobo dufanka badan ee loo yaqaano dyslipidemia
iyadana waxay sababi kartaa in beerka uu xayroobo. tanna kuma xirna qofka inuu alcohol isticmaalo ama inuusan isticmaalin. waxaa kaloo xayrowga beerka sababi kara cagaarshowga nooca loo yaqaano hepatitis C virus. boqolkiiba 90 ultrasoundka waxaa si fudud oo xaqiiqda loogu ogaan karaa xayrowga beerka. ultrasoundku wuxuu muujiyaa beerka oo cad ku jiro oo cadaan ku jiro bright liver marka la barbar dhigo ama loo eego unugyada kulida. يعني wuxuu ku tusayaa qofkan haduu beerkiisa ay xayr ku jirto ama beerkii u xayroobay, wuxuu marka ultrasound saartid wuxuu ku tusayaa beerkii oo cadaaday ama cadaan uu ku jiro wuu ku soo qabanayaa. haddaba waxaa jira noocyo loo kala qaybiyo beerka markuu xayr fuusho ama xayroobo, isaga si kala qaybsama. xayrowga beerka noocyadiisa: nooca koowaad xayrowga fudud waxaa loo yaqaanaa mild steatosis. qaybta labaad xayrowga meel dhexdhexaadka ah waa moderate steatosis. xayrowga aadka u badan waa severe steatosis. marka la adeegsanayo qalabka ultrasoundka, unugyada beerka waxaa kasoo muuqda jabaqyo kala duwan sida fatty free. baruurtan aan xadidnayn ee beerka waxay muujinaysaa humaag madow. waxayna ku tusaysaa markaad kombiyuutarka fiiriso waxa la dhaho hypoechoic areas, yani waxay ku tusaysaa jabaqo yar ama humaag yar inuu madow jiro. marka qaybtaasna waxaa laisla ogyahay inay tahay fatty free ama baruur aan xadidnayn noocay tahay iyo qaybta ay tahay, ma badan tahay ma yar tahay mise waa iska meel dhexaad. waxaa jira qayb labaad oo la dhaho focal steatosis. barta beerka xayrowga waxay muujinaysaa humaag cadaan ah, waxaana loo yaqaanaa hyperechoic. haddaba beerka xayrowga ultrasoundka waa habka ugu wanaagsan ee lagu ogaado. yacni qofkan markuu beerkiisa ay xayr fuul saaran tahay wax calaamada ma lahan, qofkii ma xanuunsanayo, noloshiisa inta ka dhiman lagama yaabo in la ogaado. hal mar baa la ogaan karaa waa hadduu qofkaas kombiyuutar isa saaro sikadiisa isagoo waxyaabo kale iska baaraya. anigu waxaan arkay 90% dadka beerkooda laga helay inay xayr saaran tahay waa dad aanan aslanba aan u imaanin inay beerka iska baaraan oo xanuuno kale iyagoo laga baarayo oo kombiyuutarka la saarayo baa kombiyuutarku wuxuu soo saaray in beerkooda ay xayr ku jirto. marka qofka wax calaamadana iskuma arkayo, jirana ma lahan, wax si kale oo lagu garan karo ma lahan ilaa qofka uu isa saaro kombiyuutar. non-invasive technique. sidoo kale ultrasoundka waxaa si sahlan loogu xaqiijin karaa beer xayrowga beer xayrowga noociisa uu yahay. haddii uu yahay beer xayrow xadidan iyo mid aan xadidnayn. midka xadidan waxaa afka ingiriiska lagu dhahaa focal hepatic steatosis. baruurta aan xadidnayn ee beerkana waxaa la dhahaa fatty free. insha Allah maanta qaybtii saddexaad ee taxanaha ultrasoundka halkaas buu inoo joogi doonaa. waa inoo qaybta soo socota hadduu Ilaahay idmo. fadlan haddii aad ka heshay fiidiyoga ama muuqaalka, subscribe, like and share la wadaag asxaabta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.